اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. وجه دنيانا لباك بالدموع الساجئات يتلظى بشعاع بالرمال السافيات. وجه دنيا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan meel kastoo naga daawanaysaan ku soo dhawaada shabakada haqabeel.com. maanta barnaamijkeena waxaanu kaga hadlaynaa 8 cunto ee nabiga calayhi salaatu wasalaam oo jeclaa inuu isticmaalo ama uu cuno. cuntooyinkaasi daawadayaal waxaa kamid ah cuntada koowaad malabka. malabku wuxuu kamid yahay cuntooyinkii nabigeenu jeclaa calayhi salaatu wasalaam. xadiis laga soo wariyay nabigeena calayhi salaatu wasalaam ayaa waxa uu yiri waxaan idinku ogahay laba dawo, quraanka iyo malabka. cilmi baaris la sameeyay ayaa wax lagu ogaaday xanuunada uu daweeyo malabku waxaa kamid ah xanuunada ku dhaca caloosha, gaaska, finanka iyo xanuunada beerka iyo waliba hargabka. cuntada labaad saliid saytuuntu waxay kamid tahay cuntooyinkii uu nabigeenu jeclaa calayhi salaatu wasalaam. saliid saytuuntu waxay u wanaagsan tahay maqaarka iyo timaha, waxayna dib u dhigtaa calaamadaha gabowga. caleenta saytuunta waxaa loo isticmaalaa in lagu daweeyo caabuqa caloosha iyo kansarka maqaarka. cuntada saddexaad cinabka. cinabku wuxuu kamid yahay cuntooyinkii uu nabigeenu jeclaa calayhi salaatu wasalaam. waxa uu nadiifiyaa dhiigga, sidoo kalena cinabku wuxuu sifeeyaa kaliyaha waanu xoojiyaa shaqadooda. cuntada afraad waa midhaha bardaha. bardaha ama tiinku inta badan waa la qalajiyaa, waxay leeyihiin dhadhan aad u macaan. daraasado lagu sameeyay midhahan ayaa lagu ogaaday inay leeyihiin faa'iidooyin badan oo dhanka caafimaadka ah, waxaana kamid ah waxay hoos u dhigaan dhiigkarka sababtoo ah waxa ku jirta macdanta potassium-ta loo yaqaano. waxay caawiyaan lumista miisaanka, waxay ka hortagaan kansarka ku dhaca naasaha. intaa waxa dheer midhaha barduhu waxay daweeyaan qaar kamid ah xanuunada ku dhaca caloosha. qaraha ama xabxabku wuxuu kamid yahay cuntooyinkii uu nabigeenu jeclaa calayhi salaatu wasalaam, sida uu dhigayo xadiis ay kutubtooda kusoo tabiyeen labada sheekh ee Abu Daawud iyo Tirmidhi. rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu isku cuni jiray xabxabka ama qaraha iyo timirta loo yaqaano radabka. qaraha waxaa lagu qiyaasaa 290% inuu yahay biyo. saasay tahay waxa ku jira macdano kala duwan oo jidhkeenu aanu ka maarmin, sida fiitamiinada vitamin A, vitamin B, vitamin C iyo vitamin E iyo fiitamiino kala duwan. waxaa kaloo qaraha ama xabxabka ku jira macdanta potassium-ta oo unug walba oo jidhkeenahi uu u baahan yahay. qaraha ama xabxabku wuxuu yareeyaa halista wadnaqabadka iyo unugyada muruqyada oo uu ka ilaaliyo inay gaboobaan. waxa uu wanaajiyaa dheefshiidka, waxa uu ka hortagaa kansarka, waxa uu qooyaa maqaarka iyo timaha. cuntada lixaad caanaha. caanuhu waxay kamid yihiin cuntooyinka quraanka kariimka ah lagu xusay. nabigeenuna calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay in caanuhu u wanaagsan yihiin qalbiga, sidoo kalena ay xoojiyaan dhabarka, sidoo kalena inay kobciyaan maskaxda, aragga iyo xusuustana u wanaagsan yihiin. cuntada toddobaad waa bocorka. bocorku waa cunto waana daawo quraanka kariimka ah lagu sheegay. nabigeenuna calayhi salaatu wasalaam uu jeclaa wuxuuna kula talin jiray asxaabtiisa inay cunaan bocorka, isagoo sheegay inuu bocorku jabiyo tiiraanyada qalbiga. bocorku sidoo kale waa maado keenta hurdo, dejiyana neerfaha, una roon dadka dabeecad ahaan kulul. bocorka biyihiisa haddii madaxa lagu maydho waxa uu daawo ka yahay madax xanuunka. cuntada sideedaad waa timirta. timirtu waxay kamid tahay cuntooyinkii nabigeenu jeclaa calayhi salaatu wasalaam. faa'iidooyinka lagu sheegay timirta waxaa kamid ah waxay socodsiisaa caloosha, waxay sidoo kale u fiican tahay xanuunada ku dhaca sida wadnaha, dhiig la'aanta, shubanka, kansarka ku dhaca mindhicirada caloosha, sidoo kale haweenka uurka leh iyo dhibaatooyinka la xiriira dhinaca taranka. timirta waxaa ku jira dhowr walxood sida fiitamiino iyo macdano. diinteenuna waxay dhiirigelisay isticmaalka midhaha timirta, isagoo nabigeenu calayhi salaatu wasalaam laga soo wariyay inuu yidhi ma gaajoodo cidda ay gurigooda taalo timiri. waxaana uu xadiiskani markhaati ka yahay ama uu caddaynayaa ahmiyadda ay leedahay timirtu, waana cuntadii ugu jeclaa nabigeenu calayhi salaatu wasalaam.
waa tahay daawadayaal barnaamijkaasi aadka muhiimka u ah waxaan filayaa inaad ka faa'iidaysateen waxaan idinla socodsiinaya anigoo ah Fuaad Cabdirashiid Aadan dhinaca kamaraduna waa injineer Maxamed Cabdilaahi Maadey intaynu barnaamij lamida ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وجه دنيانا لباك بالدموع الساجئات يتلظى بشعاع بالرمال السافيات وجه دنيانا